السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان صاحبada ku xiran janaalka waa qaybtii toddobaad qisada wiilkii goobay wadada guusha. qaybtan waxay nooga bilaaban doontaa ku xirnaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. alla maxaa ka weyn deganaanshaha nafta marka Ilaahay ku xiran tahay adiga oo xor ah oo aan isaga mooyee cid kale aan caabudayn. ku xirnaanshaha Ilaahay iyo ku dhaqanka amarkiisa iyo ka tagida wixii uu diiday taasi waxay ka dhigaysaa ruuxa inuu istaago meel qoyska iyo bulshaduba ay kaga dayato. markaas ayuu ruux dhadhamiyaa macaanka iimaanka oo macaan ka dambeeya uusan jirin. sida uu yidhi rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhadhamiyaa iimaanka macaankiisa ninka Ilaahay rabbinimo uga raali noqda, islaamkana diin ahaan uga raali noqda, Muhammadna nabinimo uga raali noqda. ku xirnaanshaha Ilaahay waxaa ka turjumaya arrimaha soo socda: al-iimaanu billah, rumaynta Ilaahay. wiilkii yaraa ayaa yidhi Ilaahay waan rumaysanahay. xaakimkii ayaa yidhi maye xusuuso inaad tahay ruux mu'mina. calaamadaha mu'minka waxaa lagu gartaa inaad dareento macaankiisa. calaamadaha lagu garto iimaanka macaankiisa waxaa ka mid ah inaad naftaada aaminto, caafimaadkaaga aaminto, dadka naftooda, maalkooda iyo cirdigooda nabadgeliso. ruuxa mu'minka ahi wax ma xado, beenna ma sheego, khiyaanana ma sameeyo. ruuxa mu'minka ah akhlaaqdiisu way fiican tahay oo waa heer sare. sidaa awgeed ku xirnaanshaha Ilaahay wuxuu ka dhigayaa inaad rumaysay iimaankaas oo Ilaahay kuu dhaweynaya. ruuxa mu'minka ahi waa ka ay dadku ku aaminaan xoolahooda, sirtooda, cirdigooda. kadibna odaygii wuxuu fiiriyay wiilka yar indhihiisa wuxuuna ku yidhi iminka haddaba ii waran, ma tahay mid mu'mina? wiilkii yaraa anigu waxaan ahay mu'min, laakiin qaabka aad uga hadlayso uma ihi. waxaa suuragal ah inuu jiro ruux Ilaahay rumaysan haddana dadka xadaya, isaga oo soomaya oo salaadaya. adiguna waxaad i bartay shay aad u muhiima oo ah inuu jiro ruux dadka si fiican ula tacaamulaya, sida muuqata salaada tukanaya oo soomaya, laakiin dadka xadaya, been u sheegaya, amaanada ay u dhibtaan qiyaameynaya. ruuxaas waxaa ku sugan calaamad ka mid ah calaamadaha munaafiqiinta. Ilaahay isaga ayaa arsaaqda qaybiya, dembigana isaga ayaa dhaafa, laakiin marka ay timaado xuquuqda dad waxaa daruuri ah inaad saamaxaad ka dalbato ruuxii aad dhibta u geysatay. haddii aad doonayso inaad dariiqa sarreynta gaarto oo aad Ilaahay ku xidhnaato, waxaa muhiim ah inaad Ilaahay xoog ugu dhawaato. Ilaahay kuwa naxariista waa uga naxariis badan yahay, cid wax karaamaysa uga karaamo badan yahay. Ilaahay dulmiga raali kama noqdo, sida uu wariyay Imaam Muslim xadiiskiisa Abu Dar. xadiisul qudsi, rasuulka wuxuu Ilaahay ka wariyay inuu Ilaahay yidhi addoomadaydiiyow, aniga dulmiga nafteyda waan ka xaaraantimeeyey, dhexdiinana waan ka xaaraantimeeyey, markaa ha isdulminina. maadaama aad ku taagan tahay wadadii guusha, waxaa muhiim ah inaad dadka xuquuqdooda siiso. deeqsinimada iyo jacaylka Ilaahay waxaa ka mid ah inaad qariso siraha dadka oo aad ka fogaato xanta iyo isku dirka. rumaynta Ilaahay waxay ku gaarsiinaysaa ku xirnaanshaha Ilaahay. wiilkii yaraa ayaa yidhi oo muxuu yahay? iminka waxaan dareemayaa macaan aanan weligay dareemin. maxay tahay sababta aan u dareemayo macaanka intaa la-eg? waxaan dareemay in dariiqani uu yahay kii sarreynta. xigmad badani, markii hore adigu waxaad cuskatay sababta oo keliya, sida ay dadka qaarkood sameeyaan, adiga oo aan ku baraarugin in abuurka guusha uu xagga Ilaahay ka yimaado. kadibna wuxuu yidhi marar badan ayaan kuugu celcelinayaa si aanad u iloobin oo aad u xusuusato, adiguna igula celceli. wiilkii yaraa ayaa yidhi oo maxaa ku xiga rumaynta Ilaahay? rumaynta Ilaahay waxaa ku xiga daacada. anigu Ilaahay baan adeecayaa. xigmad badani, oo maxaad samaynaysaa? wiilkii yaraa waan tukanayaa, soomayaa oo aan sameynayaa wixii Ilaahay amray.
oo dhan xigmad badan, laakiin marmarka qaarkood been baad sheegtaa. Waxaa dhici karta inaad xaasido, shakido, aad wax nacdo, ama se aad samayso waxaas la mida. Waxaase muhiim ah inaad ogaato in daacadu ay laba qaybsanto: wixii lagu amray oo aad la timaado. Micnaheedu waxay tahay inaad la timaado wax kasta oo Ilaahay ku amray, ha noqoto soon, salaad, sadaqo iyo xaj iyo wixii la mida, iyo wixii daacad oo kale. Midda labaad waxay tahay inaad ka tagtid wixii lagaa nahiyay ee lagu diiday, oo ah inaad si buuxda uga fogaato wax kasta oo Ilaahay kuu diiday. Ilaahay wuxuu inaga nahiyay tuugada, sinada, cabidda khamriga. Waxa kale oo uu diiday wax kasta oo xun. Wiilka yarow, ka fogow cabidda sigaarka, maxaa yeelay sigaarku waa masiibooyinka ugu xun ee ruuxa uu naftiisa baro si uu ugu halaago. Sigaarku wuxuu keenaa cudurro. Sigaar cabuhu waa nin naftiisa iyo dadka ku hareeraysanba dulmiyay. Wiilka yarow, ka fogow cabidda sigaarka, waayo waxaa ku sugan cadaab adduunyo, cadaab qabri, iyo cadaab maalinta qiyaamaha ah. Ilaahayna wuxuu ku weydiin doonaa shay kasta. Wuxuu ku weydiin doonaa cimrigaaga, maalkaaga, iyo dhallinyaronimadaada, sida uu Nebigu yidhi. Ruuxna maalinta qiyaamaha Ilaahay agtiisa kama dhaqaaqi karo ilaa la weydiiyo 4 shay: cimrigiisa, wixii uu ku dhameeyay cilmigiisa, wixii uu ku qabtay maalkiisa, meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyay, iyo dhallinyaronimadiisii waxa uu ku dhameeyay. Haddii Ilaahay ku weydiiyo uu ku yidhaahdo, adigu waa cuntaa, maxaa yeelay waad gaajootaa, biyo waad cabtaa, maxaa yeelay waad haraadaa, maxaad sigaarka u cabtaa? Su'aasha jawaab ma u helaysaa? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, anigu horta waan cabaa sigaarka. Ninkii ayaa ku yidhi, iminka igula celceli kelmaddan. Anigu markii hore sigaarka waan cabi jiray, Ilaahay mahadii waan iska daayay caadadan xun. Wiilkii yaraa ayaa kelmaddii ku celceliyay, haddana wuxuu ku yidhi, laga bilaabo saacadan waad joojisay cabiddii sigaarka. Odaygii ayaa yidhi, cabidda sigaarka waxaad u joojisay si aad Ilaahay u raali geliso, oo Ilaahay daraaddii ayaad u joojisay. Ninka shay Ilaahay daraaddii uga tagana, Ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan. Ilaahay ha kuugu beddelo maal, caafimaad, haweeney wanaagsan, iyo nolol fiican oo adduun iyo aakhiraba ah. Ilaahay ha kuugu beddelo dad aad jeceshahay iyaguna ku jecel. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, alxamdulillaah, waan ka tegay cabiddii sigaarka. Wuxuu ku yidhi odaygii, taas kaliya kuguma filna, waa inaad caawisaa dad aad u badan si ay iyaguna uga takhalusaan caadada xun. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, waxaan ku dadaali inaan caawiyo dad aad u badan si ay cabidda sigaarka u joojiyaan, si ay Ilaahay u raali geliyaan, oo ay u helaan faa'iidooyin badan oo uu caafimaadku ka mid yahay. Waayo caafimaad la'aan ruuxna ma shaqaysan karo, mana karo inuu go'aan qaato. Waxaa inoogu xigi doonta salaada iyo qaybo badan oo kale. Waxaa inoo joogto qaybtii 7 qisada wiilkii goobay wadada guusha. Haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad hore noola joogtana la wadaag saaxiibadaada, muuqaalkana like saar. mahadsanidin. hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.